ayaan la degdegin waxa la hubsado arrinkan waxa la taagan yahay xil la isku duceyn lahaa. horta geeridu waa xaq, qof walba waa uu dhimanayaa, qof walba waa uu dhimanayaa. abbaayaan waa la dareemaa, aabbaan ahay, awlaad baa ii joogta, ilaahay horta u naxariisto awlaadeeda oo dhimatay ama wiilkeeda oo dhintay, ma fahantay? laakiin asad, adiga mid waa inaad qaadataa mas-uuliyaddeeda, midaas oo ah in aadan booqan. taas waa mistake. bini'aadanaana tahay qof bini'aadan, qofka bini'aadanka ah ma ogtahay perfect maaha. perfect in aadan booqan intaas oo aadan isbitaal taas midaa ka hadlaa. macnaha waxaan ula jeedaa dad hadday saas ila rabeen inaan yacni dhulka liigiyo ama washamsi liigu qaado, stiil booskaygaa taaganahay. haddii washamsi laisku qaadane inta muuqaalka daawata dhan hal mar wada bixleed. sax, ma fahantay? marka waxa waaye ayaan la degdegin waxa la hubsado arrinkan waxa la taagan yahay xil la isku duceyn lahaa, xil walaasheen niid loo dhislahay la taagan yahay, yacni in lasii khasab ma ahaba. sax waaye. marka go-aanka usoo galne yaa sababtaas waaye. soomaaliya waad maqlaysaan ninka siduu leeyahay. hadda markii aan ku soo wacay, dad badanaa waxay ugu dhaheen commentiga asad isbitaalku ma jiro oo waa fake, ma fahantay? waxyaabaha aad diidanaa inaa kasoo hadlaa taase kaamiradii aad boorsa ku wataa igama harto, ma fahantay? haddaa soo hadlo oon arrinkaas ma jiro lii dhaho waxaana isdimoa in lii dhaha diidaa. xaaladii caafimaad ana og, ma fahmay? marka waxa waaye youtube-kaas aka maqanaya uma maqnina wax kale uga maqniye, yacni awood ay yeelan waay darteeda uga maqanaya maahane. alxamdulilah maskaxdeeda iyo idgay iyo wixii aan ku socdo dhan notiskayga ay qorshaysan yahay. waa gartay. marka waa sax. horta asadow, wax haddii ay dhacaan ama qalad oo dhaco kale, soomaalidu waxay dhahdaa sidee loo xaliyaa, ma fahantay? haddaay aniga yacquub waa soo galay lifeka, waa uu soo qabsaday. horta geeridu waa xaq, qof walba waa uu dhimanayaa, qof walba waa uu dhimanayaa. abbaayaan waa la dareemaa, aabbaan ahay, awlaad baa ii joogta, ilaahay horta u naxariisto awlaadeeda oo dhimatay ama wiilkeeda oo dhintay, ma fahantay? laakiin asad, adiga mid waa inaad qaadataa mas-uuliyaddeeda, midaas oo ah in aadan booqan. taas waa mistake. bini'aadanaana tahay qofka bini'aadanka ah ma ogtahay perfect maaha. perfect in aadan booqan intaas oo aadan isbitaal. taas midaa ka hadlaa. wiil oo waxaa jira asagana hadda dhow geeriyooda, ilaah u naxariisto, isla seem yacni haddaa aragtin kalmooge, yacni youtube-kiyaa 3 jeer 4 jeer kasoo hadlay oo la caawinayo. cudurka ku weynaaday. sidoo kale waan isku fiicneen, cid ka warhaysa ma lahan. uu geeriyooday, alxamdulilah, tiraba umaad, ilaah u naxariisto. markaasaa waxaa dhacday meeluu duugi meel kale, xitaa dadka xaafadda xitaa miyay soo ogeen, dadka social media iska daaya. ma fahanti? markii la duugayay waktiga galabtaa laiskuula heshiiyey, laakiin way kasoo hormartay duhurtii la dhahay. duhurtii camalaa la duugaa la dhahay. marka dadka qaar dhalinyartii way isku fiicnaayeen, yani hebel ma kasoo qaybgelin aa la isku qabsay. marka tanne waxay la mid tahay, yani layskama warhayo inaan gabadhaas u tacsiiyey iyo in kale cid og ma laha. soomaalidna waxay rabaan inaan video ka duubo, baayo ilaahu naxariisto aan ka dhadhaho, saasay ku qancayaan. ma fahan? markaan u tacsiyeynana yani anayba xaaladii xaal ahayd, mana jir lahayn ba taa inaan video kasoo duubo.
sababtoo ah qof dhibaataysan oo xanuunsan oo xaalkeed ilaa og ahaa ma fahmay marka waxaan halka rabo waxay tahay meel aan og tacsiina iyo meel aan og tagay iyo meel aan wax inaa wax dhan la bayaanayo sidaa sheegto inta badan ama dadka ma og tahay horta dadkan Soomaaliyeed asadow macnaha markii laga hadlayo youtuber macnaha adiga waxaa tahay people choice youtuberka ugu jecel yahay horta moogta youtuber waa ahay youtuber kale waa jiraan laakiin youtuber markii la dhaho saaxiibow YouTube ninka loogu jecel yahay dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan asad xaajiyo lagama maro xitaa markii isbarbardhig la sameynayo oo kale asad xaajiyo youtuber hebel oo kale markii la dhaho 99% dadku adeeg ku doortaan macnaha masha Allah thank you marka dadkii sidaas ahay ba marka hadda waxay maaragtay ka caawdeen ama ay maaragtay ka kaceen in adiga aad gabadhaas ariyeed oo walaasha ah waadna noo sheegtay waadna noo sharaxday asadow aniga mid oo kugu cudur daara saaxiib hadda ina isbitaal ku jirto cudur daara igana raali noqo ina marbintaas laakiin waa runta in la sheego iska fiican tahay waxaan kugu cudur daara waxaa waaye asadow nin boodi kara maantay oo ordi karo mati inaan ku dhahana ma jeclaysan iga raali noqo labadaas ma fahmi baraadey waa inay taas fahmaan ma garad saaxiibo هذه سيدا شيكتو واي marka bixis walaalka ka weyn ayu asna magciis muxuu arrimahana ma ka kale Abdullahi labadooda ina mid israacdiin waa Soomaa marka meeraadisin inta badan marka waxyaabo badan oo lagu cudur daari kara marka anyway baro waxa waaye dadka Soomaaliyeedna waxaan rajeynayaa inay maaragtay fahmeen sida ay wax u jiraan ninkaasna hal ku jira waad aragtaan marka dajiya gabadhaas walaalkeen ahane in aniga ilaa asad dhammaan Soomaaliya oo dhan caawinaad nooga baahan tahay haddii subscribe noqoto social media haddii TikTok noqoto any platform oo social media waa ku soo dhaweynayna ma fahanti sifiican marka waa kaas asadu ma dib malahan waxa waaye kulay aliso duciyo ku dhaa wixii kale oo aad iga aaminsan tahay labada ahaato xumaan iga aaminsanaa ama wanaag iga aaminsanaa waxaad iga aaminsan tahay waa kugu taageeraa because adaa iga aaminsan ma fahmi marka waxa waaye haddaad xumaan iga aaminsan tahay isoo duci haddaad wanaag iga aaminsan tahay isoo duci waxyaabaha aan diidanaa inaan ano isbitaal ku jiro waxaa ka mid ah yani dadku wax hadda ay soo qorayaan waxay soo qorayaan waa wax ay qofka ay ku dhibayaan laakiin kulay waxaas had uma joogaane waxaasna inaan ka hadlo insha Allah awood ilaahay isiyay insha Allah ilaahay awood isiyo oo sidii hore aan ka fiicnaado oo kaso insha Allah oo leeyahay si wadana ayuu badagan oo ku salaama iyo asxaabta yani wax ka qarsaneed igana waan salaama insha Allah hadalkii ugu dambeeyo oo aan idin dhahay waxa waaye insha Allah isku soo duceeyo brother إلهي عافمات هكسيو إلهي عافمات هكسيو خلينك أتشوي سنة إلهي هكوف ضيو مركا waxaan ku leeyahay guuleyso hore u soco insha Allah weyn wanaagsan brother ma fahanti ana habeenay ii taa guuleyso asad xajiyo insha Allah ayo raatay khayr ku dhaaf